كذي ويرك هاي سدح دمشق وإيروبيان وحنا وكل عرين وماشي واستغل ماشي أن المقالة والشعبية أمضي سدح مرة wardegdeg daawadayaal subax wanaagsan haatan ay idin la hadlayo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka ayaa howlgallo ballaaran waxa ay ka wadaan tuulooyin hoostaga degmada Xardheere ee gobolka Mudug tuulo lagu magacaabo Baraag Ismaaciil iyo Baraag Caasho ay ciidamadu howlgallo ay ka sameeyeen nala daawada ciidamada oo u daadanaya difaacyada kooxda argagixisada ee Al-Shabaab muuqaal yar aynu ku helnay waxay ahaayeen howlgallo ay ka sameeyeen saakay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed deegaanada lagu tuhunsan yahay inay ku dhumaalaysanayaan argagixisada Al-Shabaab mid kamid ah saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo howlgalka horkacayay ayaa inooga warbixiyay howlgalladii saakay ka dhacay degmada Xardheere iyo tuulooyin ku dhow ee jabka ay gaarsiiyeen kooxda qawaarjaha Al-Shabaab tani waxa ku soo dhawaataa Galcad TV waxaad naga warantaa howlgalladii saaka ciidamadu ay ka sameeyeen tuulooyin hoostaga degmada Xardheere ee gobolka Mudug howlgalladaas oo jab xoogan lagu gaarsiiyay kooxda argagixisada Al-Shabaab iyo ciidamadu goobihii ay howlgallada ay ka sameeyeen howlgalkan wajahno kamid ahay waa mid laga soo shaqeeyo wahay howlgalku marka waxa uu dhacay si wanaagsan oo maaragtay loogu talagalay oo raashin maaragtay nimanka aroorweynta oo xaaraanta ma ku waqtiga ku qaybshaa oo ay maaragtay ay ku qayb jiraan loogu tagay waa lagu bambajiyay adiga kadib weerarka ay saddex dhimasho waa Iroobiyaan waxayna waa kala careen oo meeshii waa istaageen meeshii meel magaalo oo shacbiga ummadda isdhex marayda waaye howlgal barkaysan wahay si loo rabaan u dhacay waliba waa ku daba jirnaa ragii hadda aan rabnay inkastoo aan wali helin maaragtay waa hawada waa ku daba jirnaa iyagana waxaan ku xaqiijinay adiga sirdoonkiina waa sheegay ragii shaqada qabtana waa sheegeen waa cad yahay taasada cidda dawladda sirdoonkeeda waa u diri kartaa oo warkaas waa cad yahay wax kala soo baxaan wali waa laga yaabaa oo waqtigu intaas uu ka bato marka walaa howsha saas waaye howsha waana way doonaa haddii ilaahay yira waana socee walaalow xubnaha la dilay hadda magacooda waa lagu maqan yahay rag sirdoona ku maqan laakiin rag korka yimid oo in xataa waalid gobolka uu joogay ayaana insha Allah waa ka daba tagi doonaa haddii ilaahay yira raggii hadda aan rabnaa waa ka baxay ragna waa ku daba jirnaa wali walaalow waxaan dhiirigelin fiican u haysanaa madaxweynaha nagu amray taliyaha xoogga nagu amray taliyaha lugta nagu amray dawladna waa ka sugaynaa rajadii wanaagsanada loo sheegtay amalmarintii iyo wixii aan leenahay wixii ku dhintana waa shahiid oo waa ahlujanno wixii noolna hadda inay maaragtay ay nolol wanaagsan ku noolaadaan oo ummadaas masaakiinta oo dhib haysa aan ka dulqaadno oo aan markii hore ishariir saarin annagu dawladduna nagu dhiisageliday howlgalka caasha waaye lana joojin maayo haddii ilaahay yira intana ku nagu jirto waa wadaynaa oo nuusha karno waana waxaana howshan howlgalkana waxaa loo bedelo hadda ragga waaweyn maaragtay ilmaha masaakiinta oo dadka inta kasoo afduuftama ku tashkiilsho xooga ku adeejiyo xooga maaragtay ku walaalow arrintaas waxa waaye waa taqaana gurigii adigu aad leedahay oo aad ku dhalatay oo joogo jirtood ku soo badbaartay waxba lagaga sheegi maayo hadda oo geed u taqaan oo meesha maaragtay ninka uu mari karo ama uu joogi karo aad taqaan waa shaqadaas waa aad dareemi kartaa sida ay u qabsoonayso howlgalkaas marka howlgal waxa waaye nin hadda gurigiisii lagu haystaa waxba reeba maayo waa dareemi kartaa naf awluusan fiilayn ilaa dhaqankii iyo dadkii ulaayaba lagu haystaa naftu marka ilaaha gooye ilaahana keena geeradu xaq waaye maqan yahay rag sirdoona ku maqan laakiin rag korka yimid oo in xataa waalid gobolka uu joogay ayaana insha Allah waa ka daba tagi doonaa haddii ilaahay yira raggii hadda aan rabnaa waa ka baxay ragna waa ku daba jirnaa wali walaalow waxaan dhiirigelin fiican u haysanaa madaxweynaha nagu amray taliyaha xoogga nagu amray taliyaha lugta nagu amray dawladna waa ka sugaynaa rajadii wanaagsanada loo sheegtay amalmarintii iyo wixii aan leenahay wixii ku dhintana waa shahiid oo waa ahlujanno wixii noolna hadda inay maaragtay ay nolol wanaagsan ku noolaadaan oo ummadaas masaakiinta oo dhib haysa aan ka dulqaadno oo aan markii hore ishariir saarin annagu dawladduna nagu dhiisageliday howlgalka caasha waaye lana joojin maayo haddii ilaahay yira intana ku nagu jirto waa wadaynaa oo nuusha karno waana waxaana howshan howlgalkana waxaa loo bedelo hadda ragga waaweyn maaragtay ilmaha masaakiinta oo dadka inta kasoo afduuftama ku tashkiilsho xooga ku adeejiyo xooga maaragtay ku walaalow arrintaas waxa waaye waa taqaana gurigii adigu aad leedahay oo aad ku dhalatay oo joogo jirtood ku soo badbaartay waxba lagaga sheegi maayo hadda oo geed u taqaan oo meesha maaragtay ninka uu mari karo ama uu joogi karo aad taqaan waa shaqadaas waa aad dareemi kartaa sida ay u qabsoonayso howlgalkaas marka howlgal waxa waaye nin hadda gurigiisii lagu haystaa waxba reeba maayo waa dareemi kartaa naf awluusan fiilayn ilaa dhaqankii iyo dadkii ulaayaba lagu haystaa naftu marka ilaaha gooye ilaahana keena geeradu xaq waaye xaqaan ku taaganahay waana ku dhama doonaa waana ku dhamaynaa haddii ilaahay weli hadda meel hadda waxay talis shabaab iyo talis shabaab ma shacab ma dhex geli karto waa dareemi kartaa oo dad ma dhex geli karaan
marka waa xogtaas waana la heli doonaa idinkuna waa heli doontaa nimankuna waa heli doonaa magacyadaas laakiin meeshaas rag waaweyn ku baxay oo maaragtay hadda aan ciidan ahayn ciidanna hadda nimankan maba hayaan oo ilmo yaryar oo masaakiin ah oo dadkoodii laga soo xoogay ama laga soo xabaya la howlgeliyaa marka raggaas waaweyn hadda raba in macnaha laga reebo ummadda oo ummadda dhibayo ummadda maaragtay xoolahooda ma u fadho inay ku cunaan raba meesha marka nimanka lagu weeraro waxay meeshii baktiga ay ku adeegireen oo meesha ay maaliyad daraan oo ay meesha waxa waaye meel salis oo lacagahaas ummadda looga qaado xooga saldhiguna wuxuu u jiraa adiga 20 tilaabo xal u jiraa oo garabka isku hayaan adiga ragna saldhiga wixii ku ciidan ku jiro oo xiray ragna sagan waaweyn oo howlgalo xoloweynka taban khayran dadka masaakiinta inay dhibaatayaan ali nimankan idinka noo keenay hadda sida xogaana soo gaara ay sheegayaan laakiin dadkan masaakiinta dhibaataynta oo horay u hayeen haddana waxa uu xaqaan ku taaganahay waana ku dhama doonaa waana ku dhamaynaa hadii ilaahay wali hadda meesha meel hadda waxay talis shabaab iyo talis shabaab shacab dhagli karto waa dareemi kartaa oo dad ma dhexgali karaan marka waa xogtaas waana la heli doonaa idinkuna waa heli doontaa nimankuna waa heli doonaa magacyadaas laakiin meeshaas rag waaweyn ku baxay oo maaragtay hadda aan ciidan ahayn ciidanna hadda nimankan maba hayaan oo ilmo yaryar oo masaakiin ah oo dadkoodii laga soo xoogay ama laga soo xabaya la howlgeliyaa marka raggaas waaweyn hadda raba in macnaha laga reebo ummadda oo ummadda dhibayo ummadda maaragtay xoolahooda ma u fadho inay ku cunaan raba meesha marka nimanka lagu weeraro waxay meeshii baktiga ay ku adeegireen oo meesha ay maaliyad daraan oo ay meesha waxa waaye meel salis oo lacagahaas ummadda loonaha la dilay hadda magacooda waa lagu maqan yahay rag sidoona ku maqan laakiin rag korka yimid oo in xataa waalid gobolka uu joogay ayaana insha Allah waa ka daba tagi doonaa hadii ilaahay raggii hadda aan rabnaa waa ka baxay tagna waa ku daba jirnaa weli walaalo waxaan dhiirigelin fiican u haysanaa madaxweynaha nagu amray taliyaha xoogaa nagu amray taliyaha lugta nagu amray dowladda waa ka sugaynaa rajadii wanaagsanada loo sheegtay amaalmarintii iyo wixii aan leenahay wixii ku dhintana waa shahiid oo waa ahlu janno wixii noolna hadda inay maaragtay ay nolol wanaagsan ku noolaadaan oo ummadaas masaakiinta oo dhibku haysa aan ka dulqaadno taliyo howlgalkan wajahno kamid ahay waa mid laga soo shaqeeyo ahay howlgalku marka waa u dhacay si wanaagsan oo maaragtay sida loogu talagalay oo raashin maaragtay nimanka xoloweynka oo xaaraanta ma ku waqtiga ku qaybshaa oo ay maaragtay ay ku qaybi jireen loogu tagay waa lagu bambajiyey adiga ragii oo weerarka ahay 3 dhimasho waa ay hubiyeen waxayna waa kala carreen oo meeshii waa istaageen meeshii meel magaalo oo shacab iyo ummadda isdhex marayda waaye howlgal barakaysan wahay sidii loo rabaan u dhacay welina waa ku daba jirnaa raggii hadda aan rabnay inkastoo aan weli helin maaragtay waa xogooda waa ku daba jirnaa iyagana waxaan ku xaqiijinay adiga sirdoonkiina waa sheegay raggii shaqada qabtana waa sheegeen waa cad yahay taasada cidda dowladda sirdoonkeeda waa u diri kartaa oo warkaas waa cad yahay inay wax kala soo baxaan weli waa laga yaabaa oo waqtigu intaas uu ka bato marka walaal howsha saas waaye howsha waana weyn doonaa haddii ilaahay yira waana socee walaalow xubnaha la dilay hadda magacooda waa lagu maqan yahay rag sidoona ku maqan laakiin rag korka yimid oo in xataa waalid gobolka uu joogay ayaana insha Allah waa ka daba tagi doonaa hadii ilaahay raggii hadda aan rabnaa waa ka baxay tagna waa ku daba jirnaa weli walaalo waxaan dhiirigelin fiican u haysanaa madaxweynaha nagu amray taliyaha xoogaa nagu amray taliyaha lugta nagu amray dowladda waa ka sugaynaa rajadii wanaagsanada loo sheegtay amaalmarintii iyo wixii aan leenahay wixii ku dhintana waa shahiid oo waa ahlu janno wixii noolna hadda inay maaragtay ay nolol wanaagsan ku noolaadaan oo ummadaas masaakiinta oo dhibku haysa aan ka dulqaadno oo aan markii hore shariif saarin annagu dowladduna nagu dhiirigeliday howlgalka caasha waaye lana joojin maayo haddii ilaahay intana ku nagu jirto waa wadaynaa oo nuusha karno waana waxaana howshan howlgalkana waxaa loo bedelo hadda ragga waaweyn maaragtay ilmaha masaakiinta oo dadka inta kasoo afduurtamaha ku tashkiilsho xooga ku adeejiyo xooga maaragtay ku walaalow arrintaas waxa waaye waa taqaana gurigii adigu aad leedahay oo aad ku dhalatay ood joogi jirto ood kusoo barbaartay waxba lagaga sheegi maayo hadda ood geed u taqaan oo meesha maaragtay ninka uu mari karo ama uu joogi karo aad taqaan waa shaqadaas waa aad dareemi kartaa sida ay u qabsoonayso howlgalkaas marka howlgal waxa waaye nin hadda gurigiisi lagu haystaa waxba reeba maayo waa aad dareemi kartaa naf awluusan fiilayn ilaa dhaqankii iyo dadkii ulaayaba lagu haystaa naftu marka ilaaha gooye ilaahana keena geeradu xaq waaye xaqaan ku taaganahay waana ku dhama doonaa waana ku dhamaynaa haddii ilaahay weli hadda meesha meel hadda waxay talis shabaab iyo talis shabaab shacab ma dhexgali karto waa dareemi kartaa oo dad ma dhexgali karaan marka waa xogtaas waana la heli doonaa idinkuna waa heli doontaa nimankuna waa heli doonaa magacyadaas laakiin meeshaas rag waaweyn ku baxay oo maaragtay hadda aan ciidan ahayn ciidanna hadda nimankan maba hayaan oo ilmo yaryar oo masaakiin ah oo dadkoodii laga soo xoogay ama laga soo xabaya la howlgeliyaa marka raggaas waaweyn hadda raba in macnaha laga reebo ummadda oo ummadda dhibayo ummadda maaragtay xoolahooda ma u fadho inay ku cunaan raba meesha marka nimanka lagu weeraro waxay meeshii baktiga ay ku adeegireen oo meesha ay maaliyad daraan oo ay meesha waxa waaye meel salis oo lacagahaas ummadda looga qaado xooga saldhiguna wuxuu u jiraa adiga 20 tilaabo xal u jiraa oo garabka isku hayaan
adiga ragna saldhiga wixii ku ciidan ku jiro oo xiray ragna sadan waa weyn oo howlgalo coloweynta taban keenay dadka masaakiinta inay dhibaatayaan ali nimankan ninkan noo keenay hadda sida xoogana soo gaara ay sheegayaan laakiin dadkan masaakiinta dhibaataynta oo hore u haayeen haddana waxa weyn maaragtay waxay u geystaan waa dambi dhaaf ay u noqonayaan annagana kan heli doono oo kana daali doono haddii ilaahay waa marka u dambeeyaan soo qaban heleyna wallahi hadda ummadda teleefanadii ka aruus iyo maaragtay iyo inay dadkii meel soo geeyeen oo xoolihi hataa ceelkii u diideen amaanta la sheegayay kullay waa dad ay haysato dad maaragtay wareeg oo xalawayaal awalan hadda arxan laga sugeyn dadkaasna wixii ilaahay uu talagalay ku baxayaan ayaguna waxa weyn maaragtay ilaaha ummadda ka qaban doono oo ummaddu rabbina waalada oo aan markii hore shaqo saaran annagu dawladuna nagu dhiirigeliday howlgalka caasha waaye lana joojin maayo haddii ilaahay inta nagu dirso waa wadaynaa oo nuusan karno waana waxaana hawshan howlgalkana waxaa loo bedelo hadda ragga waaweyn maaragtay ilmaha masaakiinta oo dadka inta kasoo afduurtamaha ku taskiilsho xooga ku adeejiyo xooga maaragtay ku walaalow arrintaas waxa waaye waa taqaana gurigii adigu aad leedahay oo aad ku dhalatay oo joogi jirto ood kusoo barbaartay waxba lagaga sheegi maayo hadda oo geed u taqaan oo meesha maaragtay ninka uu mari karo ama uu joogi karo aad taqaan waa shaqadaas waa aad dareemi kartaa sida ay u qabsoonayso howlgalkaas marka howlgal waxa waaye nin hadda gurigiisii lagu haystaa waxba reeba maayo waa aad dareemi kartaa naf awluusan fiilayn ilaa dhaqankii iyo dadkii awlaayaaba lagu haystaaye naftu marka ilaaha gooye ilaahana keena geeruhu xaq waaye xaqaan ku taagannahay waana ku dhama doonaa waana ku dhamayna haddii ilaahay weli hadda meel hadda waxay talis shabaab iyo talis shabaabna shacab dhex geli karto waa dareemi kartaa oo dad ma dhex geli karaan marka waa xogtaas waana la heli doonaa idinkuna waa heli doontaa ninkuna waa heli doonaa magacyadaas laakiin meeshaas rag waaweyn ku baxay oo maaragtay hadda aan ciidan ahayn ciidanna hadda nimankan maba hayaan oo ilmo yaryar oo masaakiin ah oo dadkoodii laga soo xoogay ama laga soo xabaya la howlgeliyaa marka raggaas waaweyn hadda raba in macnaha laga reebo ummadda oo ummadda dhibaayo ummadda maaragtay xoolahooda ma u fadho inay ku cunaan raba meesha marka nimanka lagu weeraro waxay meeshii baktiga ay ku adeegireen oo meesha ay maaliya daraan oo ay meesha waxa waaye meel salis oo lacagahaas ummadda looga qaado xooga saldhiguna wuxuu u jiraa adiga 20 tilaabo xaal u jiraa oo garabka isku hayaan adiga ragna saldhiga wixii ku ciidan ku jiro oo xiray ragna sadan waa weyn oo howlgalo coloweynta taban keenay dadka masaakiinta inay dhibaatayaan ali nimankan ninkan noo keenay hadda sida xoogana soo gaara ay sheegayaan laakiin dadkan masaakiinta dhibaataynta oo hore u haayeen haddana waxa weyn maaragtay waxay u geystaan waa dambi dhaaf ay u noqonayaan annagana kan heli doono oo kana daali doono haddii ilaahay waa marka u dambeeyaan soo qaban heleyna wallahi hadda ummadda teleefanadii ka aruus iyo maaragtay iyo inay dadkii meel soo geeyeen oo xoolihi hataa ceelkii u diideen amaanta la sheegayay kullay waa dad ay haysato dad maaragtay wareeg oo xalawayaal awalan hadda arxan laga sugeyn dadkaasna wixii ilaahay uu talagalay ku baxayaan ayaguna waxa weyn maaragtay ilaaha ummadda ka qaban doono oo ummaddu rabbina waalada kaasi wuxuu ahaa mid kamid ah saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo inooga warbixinayay howlgaladii saaka ay ka sameeyeen tuulooyin dhaca gobolka mudug qaasanta degmada Xaradheere fadlan channelkan hadduu kugu cusub yahay subscribe inoo saar waa mahadsantihiin